marka labaadna maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee dalka oo dhowaan gudaha magaalada muqdisho kusoo laabtay ayaa xalay markii ugu horreysay hadlay. Qodobada uu ka hadlay ayaan kula wadaagi doonaa oo ay ka mid yihiin eedeymo culus oo u soo jeediyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay ka mid yihiin in uu dalkii gaajo loogu baktiyey. Sidoo kale arrimihii dhulka ayuu sidoo kale ka hadlay, waa kula wadaagi doonaa, iyo siyaasadda dalka oo maanta aada u kacsan kadib markii uu xalay farmaajo hadlay, iyo sidoo kale ololo culus oo uu muqdisho ka wado ayaan kula wadaagi doonaa. Waxaa kaa codsanaya marka hore inaad youtube-ka kusoo biirto, subscribe dhahdo, muuqaalkana laga saarto, kambalelkana furto si ay kuusoo gaaraanin warbixinada ku saabsan deegaanada Soomaalida iyo sidoo kale deegaanada Puntlandba oo aan halkan kusoo gudbino maalin walba. Haddii aan ku bilaabo, madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay kulan casho ah u sameeyey qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo kala hadlayay xaaladda dalka iyo sidoo kale sidii loo dardargelin lahaa sidii doorasho ay dalka uga qabsoomi lahayd. Madaxweyne farmaajo oo qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya kuwooda mucaaradka ah xalay kulan casho ah u sameeyey ayaa sheegay in loo baahan yahay in wadanka ay doorasho ka dhacdo. Si doorasho uga dhacdana madaxweynaha Soomaaliya lagu khasbo in uu dalka doorasho ka qabto. Waxa uu u sheegay sida ay wararku sheegayaan in dalka laga dareemo in madaxweyne farmaajo uu dalka yimid, mucaaradkuna uu yeesho miisaan culus. Mucaaradkii hore ayaa lagu tilmaamay inay wax awoodaba aysan lahayn, madaxweyne xasan sheekhna uusan in mucaarad joogo iyo in kale uusan dareemin, balse madaxweyne farmaajo oo xalay keliya hadlay ayaa la dareemay miisaankiisa siyaasadeed. Waxaana la sheegaya, wararku sheegayaan in maalmaha soo socda ay dhici doonaan kulamo waaweyn oo la rabo in xaaladda dalka mid doorasho loogu jiheeyo. Haddii aan isdul taagno qodobada uu madaxweyne farmaajo xalay ka hadlay, waxaa ka mid ahaa in uu sheegay in dalka ay ka jirto baahi daran, taas oo ah aan dhehe in dadka Soomaaliyeed ninkii heli kara uu maalintii keliya uu qadeeyo, inta kalena uu baahan yahay, waa intii heli karta ayuu yiri. Sidoo kalena madaxweyne farmaajo waxa uu soo hadal qaaday dhul boobka adag oo ka socda magaalada muqdisho, hantidii dadkana ay dowladda hadda talada haysa inay hantidii dadka ay boobayso ayuu madaxweyne farmaajo uu sheegay. Waxaa la filayaa in maalmaha soo socdana uu nabadoonnada iyo sidoo kale dhalinyarada iyo haweenka uu madaxweyne farmaajo kulamo la yeesho oo miidiyaha ah, taas oo lagu kicinayo ama lagu abaarayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud si uu dalka doorasho uga qabto. Dhanka kale, xasan sheekh ayaa qorsheynaya in uu 3 sano uu kusii darsado, waa sida ay wararku dhowaan sheegayeen, in uu 3 sano kusii darsado xilka kursiga, muddo kororsina sameeyo. Sidoo kalena waxaa la sheegayaa in xasan sheekh uu rabo in doorasho qof iyo cod ah uu dalka ka qabto, isla markaasna uu dalka uusan mar dambe kusoo noqon. Balse farmaajo oo dhowaan yimid ayaa la eegi doonaa waxa uu ka bedelo xaaladda siyaasadda dalka oo ah mid kacsan. Waxa uu sheegay ama xildhibaanada mucaaradka ah u sheegay, si hoose ugu sheegay in 5 bilood keliya ay ka dhiman tahay muddo xileedkii madaxweyne xasan sheekh, ilaa iyo haddana aan lahayn wax mucaarad ah oo awood leh. Madaxweyne xasan sheekhna meeshaa ka kicin kara. Xildhibaanadana waxa uu sheegay in ay kaalintooda ka qaataan sidii dalka uu doorasho u geli lahaa. Dhanka kale, mucaaradkii kale madaxweyne xasan sheekh waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho, ilaa iyo hadda wax wara lagama hayo. Dhowaan waxay sheegeen in magaalada Addis Ababa aan dhehe dhowaan waxa ay sheegeen in magaalada Kismaayo ay ku qaban doonaan kulan weyn ama shir weyn oo xaaladda dalka ku jiro looga wada hadli doono. Ilaa iyo hadda weli lama qaban, iyagana waa eegi doonaa oo wararkeena dambe ayaan ku fiirin doonaa. Halkan haddaa nala soo gaartay, waxaa markale kaa codsanayaa inaad youtube-ka kusoo biirto, subscribe dhahdo, muuqaalka laga saarto, kambalelkana furto si ay kuusoo gaaraanin warbixinada maalinlaha ah ee halkan kusoo gudbino.